halkan waxaan kula kulanay maanta ubaxina oo ah gabar caan oo laga yaqaano social media isla markaana caawisa oo taageero badan ay u hayaan gabdho badan oo Soomaaliya taasoo ay ka caawiso dhalitaanka exercise-da iyo markii la dhalo kadib ubaxina soo dhawo aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa bahda kulmiye TV waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa oo halkaan aan ku soo dhaweynaa Sweden isagoo naga soo booqday ilaa iyo America Ohio inoogu yimaaday Gothenburg Sweden walaalkay marna ah wiil aan isla soo kornay aan iskuul wax ku soo baranay Cabdinasiib Xasan Muuse walaal soo dhaw aad baan ku salaamayaa aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka qiimaha leh ay aan maaragtay iyo kulanka qiimaha leh aan maanta isla qaadanayno aad baa maasantahay ubaxina sidoo kale aan ku mahadcelinayaa walaale waxaan rabaa inaan ku weydiiyo barnaamijkan aad wado ee YouTube-ka aad soo gelisay iyo social media ma islaada barnaamij wuxuu tara ayuu yahay gabdhaha dhalaya ama dhalayba ee Soomaalida ah wallahi wax weyn ayuu u taray dad badan ayuu wax weyn ka bedelay qaabkii ay u foolan jireen awal iyo waxyaabihii ay qalbiga ku hayeen gaar ahaan barnaamijyadeeda ku saabsan jimicsiga neefsashada dhaqdhaqaaqa waqtiga la foolanayo gabdho badan buu aad wax ugu taray ma heshay ma aragtay wali ama ma aragtay gabdho kaaga mahadcelinaya ama kugu taageera arrintan dad badan run ahaantii aniga laftigayga wax igu noqotay lama filaan markii aan arkay gabdho badan oo maaragtay Africa America Australia Europe meel walba macnaheedu igala soo xiriiray iina mahadceliyay iina sheegay in ay ku liibaaneen barnaamijkayga run ahaantiina aad baan maaragtay dhiirigelin weyn iigu noqotay ma sii wadi doontaa mise meel aad ku ekeen doontaa jirta arrimahan ilaa aan ka dhimanayo waa sii wadi doonaa insha Allah wax kasta oo waxtar u leh ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeedba waan wadayaa of course qof kasta ila soo xiriira wixii karaankayga aan aqaano ayaan u sheegaa macnaheedu ama aan kala taliyaa meel ay kuwa aan ku garanayn kuwa ku yaqaano ku raaco oo subscriberskaaga marka laga soo tago kuwa aan ku aqoonin raba inay informationkaaga helaan sidee bay kugu heli karaan والله ميلا دور ayay igala soo xiriiri karaan iga heli karaan gaar ahaan kanaalka ama channelka aan ku leeyahay YouTube-kayga oo ah ubaxina Muusa ah farqa gaaban ah meesha xaada ahna waa ha macnaheedu ubaxina Muusa oo gaaban ayaa la igala soo xiriiri karaa hatta Facebook-gaygana isku magac ayaan macnaheedu yahay qoraal ayaa la ii soo qori karaa ama email ayaa la ii soo diri karaa dad badan ayaa macnaheedu aan u sheegaa email-adeeda haddii isoo weydiiyaan macnaheedu waa iyo teleefoonadeeda dad badan ayaa macnaheedu aan siiyaa marka qof kasta oo Soomaaliyeed wiil iyo gabar hooyo iyo aabe cid kasta oo danaynaysa barnaamijyadeeda rabta inaan talooyin iyo tusaalooyin aan siiyo ama rabta inay aniga laftigayga waxba faa'iideystaa ayaga kaliya wax uma faa'iideeyo hatta aniga ii faa'iideynaya way ila soo xiriiri karaan okay taas markaan intaas kaga tagno maxaad ku waanin lahayd gabdhaha hadda aqal galaya ama uurka yeelan doona ama kuwii horeyba aanan u sameyn exercise-yadan ama keerkan badan aanan sameynin Cabdinasiib wallahi su'aal fiican ayaad weydiisay run ahaantii badanaa markii aan guursano ma haysano warbixin ku saabsan guurkii iyo sidii maadaama aan awal ahayn dad macnaheedu guriyihii hooyadood iyo aabahood joogay ama ehelkooda joogay yacni aan macnaheedu si kale dhaqan kaleeto ay haysteen markii ay guursadeenna ay nolol kaleeto gelayaan ma haysano isu diyaarin ama boog ha noqoto ama warbixin kaleeto ama dad noo qaabilsan arrimahaas ha noqoto ma haysano dadna wacyi geliya oo wax noo sheega marka adduunweynaha way ka dhacdaa oo macnaheedu qofku wuxuu raadsadaa programmo badan oo uu isu sii diyaarinayo nolosha cusub laakiin annaga sidaas oo kaleeto ma haysano marka sidaa daraadeed qof kasta oo guursanaya waa in uu noloshiisa cusub uu wax ka soo ogaado say isku bedelayso noloshii uu ku jiray iyo tuu galiyo yacni inay macnaheedu noqonayso nolol cusub sidaas oo kale gabar kasta oo uur yeelata ayadana ha ogaato waxyaabaha looga baahan yahay intay uurka leedahay inay isticmaasho ama cunnaha noqoto ama cabitaanaha noqoto ama macnaheedu ha noqoto dhaqan kaleeto ay ku dhaqmi lahayd haddana sidaas oo kaleeto markay foolanayso waa inay raadsato macnaheedu wacyigelin
iyo talooyin iyo macnihii waxbarashooyin isu diyaarin ayada iyo ninkeedaba kaliya ma ahan gabadha kaliya inay raadiso ninkeeda xataa waa inuu arintaas uu macnihii uu asagana ku jiro maxaa yeelay asaga xataa qayb ayuu ka yahay noloshan xaaskiisa macnihii isbedeladan ku imaanayo qayb ayuu ka yahay marka asaga laftigiisa waxaa laga rabaa in uu macnihii uu asaga xataa ama wax soo akhriyo ama talooyin soo raadsado xarunta daryeelka hooyooyinka diyaar bay ula yihiin macnihii famil kastaaba in ay helaan wixii maaragtay ay u baahnaayeen sidaa daraadeed marka qofna su'aal xun macnihii waxay dhaantaa su'aal la'aan ayay dhaantaa qofka waxaa fiican su'aal kastoo xun waa su'aal inuu weydiiyo uusan la gabanin usrihin su'aashaada ama lagugu qoslaa waa inuu macluumaad raadsado waa inay gabadhii macluumaad raadsado aabihii raadsado isla raadsadaan ayagii sidaa daraadeed hadhowto fooshoodii wuu u fududaanayaa markii ay arrimahaas oo kaleeto isu soo diyaariyaan waxaanse kaloo kula talinayaa gabdhaha jooga macnihii wadamadan ay heli karaan duula wax la yiraahdo sida aniga hadda ku shaqeeyo kale duula oo ah kalkaaliso fooleed gabadhu markay foolanayso kalkaalisadii caawin lahayd ma aha inay ilmihii ka soo qabanayso ama ay macnihii wax daawo ku saabsan laakiin waxay xasuusinaysaa inay wax cabto inay wax cunto inay dhaqdhaqaaqdo su'aalo badan ayaa la weydiiyaa ah naama waalan tahay see annagoo macnihii foolanayno xanuun nahaayo see wax u cabbi karnaa see wax u cuni karnaa see u dhaqdhaqaaqi karnaa see u ciyaari karnaa see u jimicsan karnaa taasna macnihii waa ku soo sheegay channelkayga marar badan marka idin leeyahay dhaqdhaqaaqa ama wax cuna waxa weeye markii xanuunka idinka foqo maxaa yeelay xanuunku wuu idin qabanayaa wuu idin daynayaa inta u dhaxaysa labada xanuun dhaqdhaqaaq haddii aad istaagsanayd oo kaleeto xanuunka ku qabto lugaha kala fogee isdabci neefso ha dhaqaaqin istaagnow meeshaada markuu kaa foqo dhaqdhaqaaq markaa socsoco wax cun wax cab qosol sheekee waxyaabo badan ayaa qaban kartaa intaa foolanaysid ubaxina aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa thank you very much abo soo dhawow mar kalena ku soo dhawow Sweden thank you